qaabka aad u ogaan lahayd passwordka internetka kuugu jira kombiyuutarkaaga. haddaba si aad u ogaatid waxaad tagi calaamadda windowga ama keyboardka ayaa taaban, kadib settingka ayaa tagi. settingka markaad tagtid network and internet baad dooran. network and internet markaad tagtid wifi gaad sii dooran. halkan dhinaca waxaad ka dooranaysaa qaybta midigta change adapter option. sidaa baa kuugu soo baxaya saddexda qaybood bluetoothkii iyo internetkii hadduu wire kuugu xidhiidhsan yahay iyo wifi-gii. kadib wifi-ga doorani. wifi-ga saamarkuu kuugu soo baxo wireless property baa sii doorani. taabka labaad ama sectionka labaad ee security ayaa dooran. security-ga markaad soo dooratid halkaa uu kaaga soo baxaya. maybe inuu ku weydiiya laga yaabaa ma hubtaa oo option ah weydiiyo. recording-kaygu inuu kan soo qabanay baa laga yaabaa oo saasoo kale uu ku weydiiyo. yes baad markaas hadduu ku weydiiyo passwordku waa halkaa kaaga soo baxay. sidaas ayaana loo soo saaraa. dad cashirka ka heshay like saar fiidiyoyadana si aan u soo badino la xidhiidha kombiyuutarka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.